السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada xilqada 16aad ee kalka labaad ee taxanaheena kabasho xilqadan waxaan u bixiyey shufbeel tamareed oo aan isiri waxay qaadi kartaa macnaha ereyga burn out marka la joogo kasmanafeedka burn out baa loo isticmaalaa marka tamartii jireed tii caqliyeed tii nafeed tii dareemeed tii wax soo saar iyo productivityga qofkii ay meeshii ka baxdo ama ay awood gabto ayaa la yidhaahaa burn out su-aasha waxay tahay anaawa idin weydiinaya xilqadeena bilowgeeda runta markaad naftaada u sheegto oo si daacada aad su-aasha uga jawaabtaan goormay ahayd markii u dambeysay ee si dhammaystiran oo dhab ah oo ruuxdaada iyo laftaada iyo dhuuxaaga iyo casabkaaga iyo seedahaaga ka dareento aado nasatay kama hadlayo goorma u dambeysay ood seexatay kama hadlayo goorma u dambeysay oo naftaada aad ka mashquulisay waxyaabo dhibaato kuga hayay kama hadlayo goorma u dambeysay oo aad kala daadatay ama aad duntay oo sariirtaada ku dul dhacday oo daalka uu ku kala tuuray waxaan ka hadlayaa goormaad si dhab ah oo dhammaystiran u nasatay xasuusan kartaa shufbeel tamareedku waxa uu dhacaa xilliyada qofka nervous systemkiisu uu in badan soo daaraa oo heegan ku jiray oo uu dareemayay in khatar dhabi ay soo wajahday oo uu muhiim tahay ama ay muhiim tahay inuu heegan ugu jiro lidaraja uu ilaaway inuu nasto ama naftiisu qofka ay dareento safety iyo nabdoona markaad isleedahay sharax daal ba'an oo gudahaaga ku jira oo ruuxdaadu ay dareemayso oo hurdo kastood seexato meedhasho kastood meedhato nasasho kasta oo dulkaxaadisood isku dayda inaad nasatahay ayna kaabiinahayn waxaa laga yaabaa inaad kusoo koobto waxaan malaynayaa inuu stress yahayo waxaan isweydiinaynaa bal neuroscience-ku wuxuu ka leeyahay shufbeelka tamareed sidee buu dhacaa muxuuse yahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sameeyey jirkeena markuu design garaynayay wax la yidhaaho body stress response marka stress ama dhibaato ama waxa la yidhaaho allahuma salli calaa sayidina muxamed qofka uu walbahaar ama wuxuu noo shakaca karaa uu la soo wajaho ilaahay subxaana watacaala wuxuu jirka u sameeyey qaab oo ula tacaamulo ama ula dhaqmo right ama uga jawaabo hadba waxaa la soo gudboonaaday wixii markuu meesha ka zuulo ee uu ka tago waa inuu jirkiisu dabiicadiisii iyo nasiinadiisii iyo deganaashihiisii iyo xasiloonidiisii uu ku noqdaa right stress baa kula soo wajahmay stresskii baad u qalab qaadatay inaad wax ka qabato dadaal baad samaysay kadibna waa zuulay wixii ama meeshii uu ka baxay waxaad qaban karaysay waad qabatay jirkaagii iyo maskaxdaadii iyo xididadaadii iyo maankaagii iyo fikirkaagii iyo gudahaagii oo dhani waa inuu xaalad deganaansho ah uu ku soo noqdaa tusaale ahaan haddii guriga qiiq ka baxo daaqadu way xidhan yihiin albaabadu way xidhan yihiin smoke alarm uu kugu xidhan yahay maxaa la yidhaha mashiin yaroo sheegaya in uu detect gareeyo ama uu ka war helo guriga inuu qiiq soo galay oo qayliya marka uu fahmo ama uu arko in gurigaasi uu dabi qabsaday maadaamaad qofkii joogay albaabadii baa furtay daaqadii baad furtay qiiqii baa guriga ka baxay sida caadiga mashiinkii waa inuu aamuso xaaladiisii deganaashiyaha uu kusoo noqdo right because wuu zuulay dhibtii uu ka qaylinayay sidaas like waxaa la yidhaaho jirka bani aadamku response-ka iyo ka jawaabidda uu ka jawaabayo hadba wixii kakana insaanka la soo gudbaahay markuu zuulo ee meeshii ka baxo ee lala dhaqmo ee wax laga qabto waa inuu xaalad deganaashiyo ah kusoo noqdaa oo heegankii iyo cabsidii iyo nabad la-aantii uu kasoo baxaa right ka waran haddii 24/7 maskaxdaadii iyo jirkaagii iyo maankaagii iyo stress response systemkii ilaahay kuu sameeyey uu heegan ku jiro right oo cyclekanba uuna gelin markay wax dhacaan inuu heegankii galo wixii markuu zuulo inuu soo noqo heegankii uu ka baxo right oo mar walba qof activationun ku jira aad tahay xaalad abuur gudahaagii uu ku jiro waxaa dhacaya shufbeel tamareed
ereyga burn out xilliyadii uu soo ifbaxay ama waraaqaha researchada lagu sameeyey cilmi nafsiga lagu dhex arkay waxay ahayd around 1970nadii. Ciddii u horeysay ee isticmaashay wuxuu ahaa nin psychologist ah oo la odhan jiray Herbert Friedberg. Herbert Friedberger wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee isticmaalay ereyga burn out, wuxuuna ka faalloonayay xilli uu ka shaqaynayay klinikyo free oo uu u fiirsaday waxa la yidhaaho dadka meesha ka shaqaynayay ee keerka bixinayay daalkii dareemahooda ku dhacay ama emotional exhaustionkii ku dhacay dadka markuu ka faalloonayay ayaa wuxuu isticmaalay ereyga burn out. dareen ahaan daalku heerka uu ka gaadhay iyo sida uu saameeyey falcelinahoodii iyo dadla dhaqankoodii iyo tayada keerkii ay bixinayeen ayuu fiirsaday. kadib wuxuu isticmaalay dadkaas inay wax ku dhaceen ay yihiin burn out ama shufbeel tamareed inay ku dhaceen. may ka dhignayn ficilada dadka kasoo baxayahay inaanay dan ka lahayn dadka ay keerka siinayaan ama ay ilaalinayaan ama ay u shaqaynayaan ama sarfaska ay bixinayaan tayadiisa inayna dan ka lahayn. waxay ka dhignayd in ay dheeraatay muddada ay keerka iyo danaynta ay bixinayeen iyagoo waxna siina ah aanan helin. marka waxay gaadheen xaalad jidh ahaan iyo maskax ahaan iyo caqli ahaan iyo fikir ahaan iyo qorshe ahaan ay shufbeeleen. ereygu uu soo socday culimo badan baa isticmaashay oo ka faallootay ilaa iyo markii dambe la kala qaadqaaday maraaxisha burn outku ama shufbeelka tamareed u maro. waxaa jirtay gabadh psychologist oo Christina la odhan jiray. gabadhaasi waxa ay samaysay baaritaan waafiya oo dhammaystiran oo la xidhiidha burn outka ama shufbeelka tamareed sida uu u dhaco. waxay u kala qaadqaaday inuu wejiyo badan leeyahay. wejiga ugu horeeya ay tiri shufbeelka tamareed u dhaco waxa weeyaan exhaustion ama daal ba'an oo daran oo ka dhigan inuu qofkii daran ahaan u daalayo, maskax ahaan u daalayo, jidh ahaan u daalayo, drained uu yahay. draining waxa weeyaan haddii tuumbada ay biyuhu soo maraan biyihii laga dhiijiyo laga shubo ilaa iyo dhibicda u dambaysa laga tebsiiyo draining baa lagu sameeyey. insaanka haddii tamartiisa maskaxeed iyo tiisa jireed iyo tiisa caqliyeed iyo tiisa dareemeed laga dhuujiyo draining baa ku dhacaya. ma keliya ma daalayo, depletion baa ku dhacaya. haddii waxa la yidhaha cinjirka aad soo qabatid oo afartaada farood aad saa u gelisid ood kala jiidid xaddi wuxuu leeyahay elasticity uu kala bax buu leeyahay. uu isku soo noqon karo uu kala bixi karo, isku soo noqon karo uu kala bixi karo. haddii aad kala jiidid gacmahaaga kala fogeysid cinjirkii wuxuu waayayaa oo meesha ka baxaysa elasticity-giisii, xaddigiisii kala jiidan. intuu kala jiidmi lahaa in ka badan baad kala jiiday, iskuma soo noqonaya haddaad farahaaga isku soo celiso. exhaustionka waxaa ku xiga xaaladda labaad ee burn outka ee dadku garaan waxa weeyaan inay feeling detachment waxa la yidhaha dareemadoodii in ay ka siibaan wixii ay markaa qabanayeen. qof baad arkaysaa iska soconaya, iska shaqaynaya, iska fulinaya wixii horyaala, qabo ay ka tahay waxa ee wax dareena iyo wax dhadhana iyo wax micno ah iyo wax hamaasa iyo wax u hayaa habeeraatay aanay jirin. qaba uun hay ka tahay. detachment baa ku dhacay markaa qofka. waxyaaba laga yaabo markii hore inay dareen ku qaban jireen, inay danayn ku qaban jireen, inay xamaas ku qaban jireen, inay kalgacal ku qaban jireen, inay jacayl ku qaban jireen, inay attention gaara siin jireen, ayaa waxaad arkaysaa qofkii isagoo iska qaba uun ay ka tahay oo wax attachmentba aanu ahayn. xaaladda labaad ee burn outku mara wax weeyaan ama uu keenaa inefficiency wax la yidhaha. inuu insaanku si joogto ah u dareemo waxa uu qabanayo, qaabka uu qabanayo in aanay ku filnayn. dareen kasta uu bixiyo, dadaal kasta uu bixiyo, ficil kasta wanaagsan uu sameeyo, wax kasta uu yeelo in aanay ku filnayn. constant dareen joogto abaa jira oo uu dareemayo in waxa uu qabanaya aanay enough ahayn.
markaas waxa galaysa naftiisii shaki uu ka shakiyo competencekiisii awoodiisii wax qabad ku filaanshiyaha waxa uu qabanayo inuu ku filan yahay oo sidii ugu mudnayd uu qabtay inuu waxani effective yahay oo sidii ugu qumanayd loo qabtay right wajiyadaasuu maraa markaa shufbeelka tamareed right marka shufbeelka tamareedka laga hadlayo waa wax yani psychological condition ah oo laga arko saameynteeda jirka bani aadamka laga arko ficiladiisa laga arko falcelinihiisa laga arko waxqabadkiisa laga arko appetite-kiisa inuu waxan appetite u hayo right okay su'aashu waxay tahay marka shufbeelkan tamareed markuu dhacayo maskaxda gudaheeda maxaa ka dhacaya in badan baynu ka hadalnay waxa la yidhaahdo amagdalada waxaynu nidhi shaqada amagdalada ee maskaxda ay ka haysa ay jirka u haysa insaanka ay u haysaa waxa weeyaan inay qofkan ay ku dhex jirto badbaadadiisa ilaaliso keep this human alive badbaadadiisa ilaali mar walba waxay iskaan garaynaysaa amagdalada oo environmentka iyo deegaanka aad joogto hal su'aalun bayna isweydiinaysaa am I safe meeshani ma nabdoon tahay xaaladani ma nabdoon tahay waxaan qabanaya ma nabdoon yahay qofkani ma nabad qaba bay ka shaqaynaysaa kolka ay aragto wax khatara oo ku soo wajahay activation bay samaynaysaa waxay activate garaynaysaa oo fadhiga ka kicinaysaa stress response gaagi waxa jirka lagu soo deynayaa dheecaamadaadii heeganka gelinayay sidii adrenaline-kii oo kale waxa kor u kacaya garaaci waxa la yidhaaho wadnahaaga waxa isgelaya ama soo gejismaya murqahaagii oo iyaguna heegan gelaya waa fight or flight mode ama waxbaad iska celinaysaa khatartii kugu soo wajahnay ama meeshaad ka cararaysaa right attentionkaagii dhan baa soo ururaya oo khatarta markaa ku hortaala ayuunbaad indhaha la raacaysa aad ku eegaysaa jirkii wuxuu isu diyaariyey inuu ka badbaado hadba wixii khatar ah ee markaa hor yaalla si qurux badan buu systemka ilaahay gudaheena ku abuuray u shaqeeyey laakiin waa short term inta uu khatarta ka badbaadinayo uu saa u shaqeeyo maaha inaad heeganka iskaga jirto maaha inaad muruqu isku kaa jiraan maaha in wadnuhu iska kaa garaacmo maaha inaad iska dhidido maaha in indhahaagu waxa weeyaan ay galka ka soo baxaan 24/7 saacata maaha khatartaas waa inaad kaga badbaadaa as soon as aad khatartaa ka badbaado meeshii ay joogtay iyo xaaladii aad ku jirtay khatarta ku gelisay aad ka baxdo waa inaad caadigii ku soo noqotaa ka waran marka stresska iyo xaaladda aad xilligaa badbaadada aad u baahneed aad gashay haddii 24/7 aad ku jirto wixii wax chronica uu noqdo waxaa ku dhacaya amagdaladaadii hypervigilance inay hypervigilant ay noqoto oo mid heegan ah 24/7 indho quranjoon ad yaalato khatarun scanning hareerahaagii aan la socoto right kolkaasaa maalin walba everyday lifeka yani nolol maalmeedkaaga oo dhan waxaad ula dhaqmaysaa siduu khatar jir email yar hadduu kusoo wadnaha kusoo boodaya deadline yar hadduu kusugayo saasuu wadnuhu kuu garaacmaya carabkaa ku qalalaya waad dididaysaa waad iscuncunaysaa hurdadii baa haddii xoogaa werwer yaro xagga dhaqaalihii ku yimaado markaasaad moysa noloshaadii oo dhan inuu dhammaatay oo werwer oo walbahaar cuntadu aanay kaa degayn oo calooshu ku istaagaysa oo biyanaad cabtaad ilaamaysa oo seexan waayaysa cid haddaad isqadataa sidaas leeg hurdadii baa kaa tegaysa cuntadii baa kaa xumaanaysa hurdadii baa kaa walaaqmaysa adigii oo dhan baa is ilaawaya notification yar markuu kusoo dhaco wadnihii baa afka ku imanaya uncertainty hubanti la-aan yar markay ku timaado waxaad dareemaysaa adduunyadii oo dhan inay kugu soo cedhiidhiyootay right 24/7 jirkaagii xaalad activation buu ku jiraa taraqub wuxuu ku jiraa xaalad uu sugayo tiro maxaa dhiciya oo macnihii waxa la yidhaaho xaalad khatara baad mar walba malaysanaysaa inay soo socoto markaasaa waxaa kugu dhacaya shufbeel tamareed tamartan jirkaagii uu isugu ururiyey inuu khatar iskaga ilaaliyo waa tamartii jirka kale laga soo ururiyey ee wixii aad qabsan lahayd iyo nolol maalmeedkaagii inay si habsamila u socoto aad u socon lahayd aad ugu baahneed halkan unbaa laysugu soo ururiyey markaas waxaad isweydiinaysaa maxaa si qumanoo caadiya oo aan ugu fikiri lahay maxaan si caadiya ugu fikiri lahay maxaan go-aan caadiya u qaadan lahay maxaa concentrationkeygii iyo diiradaydii ku dhacay maxaa qorshaynteydii awooddeydii waxqabad ku dhacay maxaa emotional regulationskeyga inaan xakameeyo dareemahayga kuwa cadhada kuwa farxadda kuwa xamaasadda kuwa shahwad maxaa ku dhacay exactly what's going on self controlkeygii maxaa ku dhacay sababta waxa weeyaan
cidda ugu horeysa energyga iyo tamarta iyo soo jeedka iyo activationka 24/7 kaahi ay saamaynta ku yeelanayaan hadday ama taladaadu 24/7 daaran tahay oo ay heegan ku jirto waxay damage garaynaysaa maskaxdaada qaybta loo yaqaano prefrontal cortex. Prefrontal cortexku wuxuu mas'uul ka yahay inaad go'aan qaadatid, awooddaada go'aan qaadashada, wuxuu mas'uul ka yahay awoodda soo jeedkaaga iyo diiradaada, wuxuu mas'uul ka yahay awoodda qorshayntaada, wuxuu mas'uul ka yahay awoodda emotional regulationkaaga inaad xakamayso oo aad adigu taliso dareenkaaga uuna isagu ku talin, wuxuu mas'uul ka yahay self controlkaaga, xakamaha naftaada, right? maadaama aad ku jirto mode survival badbaado maskaxdii waxay ku jirtaa way galaysaa xaalad qalab urursiya, xaalad ay isku dayayso in ay ku badbaadiso oo wax alle iyo wixii tamar kugu jirtay ee ila tamareed ahayd way soo ururinaysaa. Muhiim maaha inaad emotional regulation yeelato, muhiim maaha inaad wax qorshayso, muhiim maaha inaad wax diirada saarto, muhiim maaha inaad go'aan qaadato, muhiim maaha inaad seexato, muhiim maaha inaad yani waxay ka fikiraysaa badbaadi qofkan. This is why but haddaad wax xasuusan jirtay oo qof xasuusta 2012 bishii 12 galab Arbaca saacadu markay 3:00 ahayd wixii dhacay meesha ka dhacay cidii ku dhacayn haddaad xasuusan jirtay adimka u taagantay xaalad talsaaka wal maxaan ku qoraxay ruudi bay ahayd salax wax bay ahayd waxaan ku qoraxay you know because maskaxdaadii ma joogto wax ku xasuusan lahayd xasuusta qaybteeda dhow iyo qaybteeda fog ka shaqayn lahayd ma joogto, right? sababtan aad u dareemayso inaad kala daadsan tahay oo focuskii kaaga tegay oo diiradii kaaga baxday waa sababtaas. sababta aad haddaad ahaan jirto qof xamaasad leh oo motivation leh oo waxaan qabo oo kan dhame oo kan waxaan ku kala tuur aad ahaan jirtay momentumkii kaaga lumayo iyo xawaarihii aad wax ku qaban jirtay. sababta aad mar walba isaga shakiyayso awooddaadii tamartaadii iyo waxa la yiraahdo kartidaadii aad uga shakiyayso kama aha inay maskaxdaadii guul daraysatay ee waxay ka dhigan tahay maskaxdaadii waxa laaliya wax yar ee tamara ee shaqo kale ku qaban lahayd ee qiibaheeda kale ay u qaybin lahayd waxay isugu ururisay inay ku badbaadiso oo dhinacaaga ama dalada iyo qolada heegan ku jirta ay u geyso, right? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. haddii qofku uu ku jiro xaaladda burnout-ka psychological kaliya maaha biological waxay dhaawacaysaa habsami shaqayntii halbowlayaashaada xubnahaaga xaaladihii gudeed ee jirkaaga caafimaad qabkiisa iyo badqabkiisa iyo kala deganaanshihiisa ka shaqayn lahaa ayay iyagana disruption ku keenaysaa oy kala dhantaalaysaa, right? haddii cortisolkaagu uu habeen iyo maalin kor u kacsan yahay jirkii waxaa ku dhacaya inay khalkhal galo hurdadaadii, waxaa khalkhalgelayaa dheefshiidkii jirkaaga, waxaa khalkhalgelayaa isu dheelitirnaantii dheecaamada jirkaaga ama hormoneskaaga, right? waxaa kugu adkaanaysa in uu jirkaagii recovery helo, inaad nasan kartid, inaad socodka yaraay shalay toole markaad fadhiisato ilaa waanaad ka nasatahay weli ay saadiib ku xanuunaya cirbihii ay ku bararsan yihiin. dad badan baa waxay isku dayaan burnout-ka ama shufbeelkan tamareed in ay diet ka bilaabaan. intaasoo imika muddo waan iska yareeyay cuntadii gebigayga hal mar baan maalintii wax cunaa jiimka 4 cisho mise 5 cishaan tagaa haddana waxba iga dhicmaa wax igu kordhin mooyaane halkee baruurtan iiga imanaysa ama tii hore maxay saarantay iga digilaaday qofkii isweydiinaya, right? diet buu markaa gelaya, diet buu isku waalaya, kinin baa la liqaa, shaah baa la walaaqdaa, bahal yar baa la isku xidhaa, bac yar baa la isku maroojiyaa, bahal kalaa la ismariyaa, tanaa kaa dididinaysa. ishiigu maaha tamartan aad bixinaysaa waxay u shaqayn la'dahay maskaxdii kula shaqayn lahayd baa kaa mashquulsan oo survival mode ku jirta sababtaas aanay dadaaladaadu u manidal ahaynin. sababtaas aad u arkaysaa qofkii inuu isku dayo productivity hacks waxaa la sameeyaa 5 saacadood waa inaan meeshan ku xidhaa meel walba waa inaan gurigayga warqad kaga dhajiyay xasuusinaysa waxaan u baahanahay inaan qabto hebel iyo hebelaayo waa inaan ballamiyaa wixii soo xasuusiyo intood ilaa waa aan idhaha
dadka qaar saasun ban u daalanahay meel layga nugay garan maayo seexday maskaxdaydii waa soo jeedaa jirkaygii isagoo daalanan mooday in la garaacay baan kasoo kacayaa hurdaydii malaha jimbaa i jiiray waxbaa i dirdiray baan u malaynayaa qolobay la hadlayaan haa waxaad samaysa salaatuleyl showkac salaatuleyl buu qofkii u kacaya gidi habeenkii u taagnaanaya maalintiina shaqaa sugaysa subaxiina markuu soo noqdo waa daalan yahay galabtii sidiisa leeg seerkalkaasuu ku jira hurda la-aan baa ku dhacaysa يعني حالة من وحو إلهي كشكين كرو سبحانه وتعالى استغفار فربضان باسمي ذكر فربضان باسمي وإيجاز تقل على هاي دالكن يمال هترى محبا لي اللابي ترى محبا لي آسي ترى محبا مالي قنطي وحاسو حويان spiritual force كاس أما أود دا روحاني جاية تخص بيسان نفتاي سلاتولي شادو تاقين تهي شركيسو وكولا شقايو وإلا تفعلتا حالة دان نفسي جاية كده هاجة كاحيصتها حلي وردك وفلان سيحتها صلاتك وفلان آد تكتا ذكرك وفلان آد ذكر ذا خير الأمور أوسطها حالة دحدحادة بالانس يوديلي تنانا وإن تكسون نقطاسي أي نفتي كولا شقيسو جركاي كولا شقي مسكح هذه كولا شقيسو right إن اللهم صل على سيدنا محمد كما بديني سنة بالسيستم كاغو هادو ستاك يحي أو ميلكو تكين يحي أو ساعدو أي ميلكا قدكتي أو survival ميلو كتشرو حالة spiritually نوغما بدين كريسيد روحانيات كاغو كما بدينيان بقول شي ما تكتوية بقول دايتنا كبدين مايان productivity hacks كاغو وحبا كما شقينيان هدانا تفهمين سيستم كان ميشا او كخلطة مي صرتو ميشا كقورنتي وميشا سيانات سو سحن right طبعا جرى هداد شكاغا مرايتكو اكتوية هداد سعيبايسية هداد سعلاشتية هداد اسماكتية هداد سترسية هداد شي ميعيبال آد اسكو دديد وحبا كامد جينيسو علايس right jirkani iyo maskaxdani waxay u baahan tahay in la tuso it's safe waad nabdoon tahay kasoo bax stucknesskan aad ku jirto iyo xaaladan aad ku jirto iyo meeshan aad inagu xanibtay ee uma baahna culays kala dheeraada in la sii saaro okay su'aal baan markaa idi weydiinaya ama burnout questions su'aalahan waxaad kaga jawaabaysaa haa ama maya su'aasha koowaad waxa weeyaan marka aad soo toosto aad hurdada kasoo toosto miya dareenta ina daal ba'an moodo ina waraaba ku eriyaday ina daalan tahay ama libax ka cararaysay murqaha meel aan ku xanuunin aan jirin ma soo toosto markaad istiraahid naso xataa aad salka dhulka dhigto ama aad jiifsato mar walba ma dareemaysaa guilt naftaadu dambi dareensiin joogta ama ku dareensiinaysaa kaanama inaanan nasan karin wax kaa dayacmayaan wax kaa kala haadayaan ad u baahantay inaad kacdo right waxyaabaha aad jeclaan jirtay oo xamaas aad u haysay kalgacal aad u haysay oo kaaleera adigoo nafsi aad qaban jirtay imika ma weyday kalgacalkii iyo drivekii iyo wixii kugu kaxayn jiray qabashada waxyaabaha aad qaban jirtay waxyaaba yar oo aan u baahnayn awood fara badan iyo tamar fara badan in lagu qabtaahi markaas tiraha qabo maaragta adigoo neef gudinaya allahumma salli calaa muxamed mar walba ma dareemaysaa in aad dambayso oo dadkii kaa tageen marka aad seexato ee aad soo toosto ma dareemaysaa in maskaxdaadii ay soo jeeday jirkaaga kaliya sariirta ama faraashka ama cawda ama whatever aad ku seexato uu saarnaa dareemadaada emotionskaaga ma dareemaysaa inay kabuubiya kaaga jirto sidaad wax u dareemi jirtay aan waxba u dareemaynin waxba ku dhibayninba waxba ku dhibayn lugta markay kabuubiyato in badan ku fadhidaa dad qanjiriso xataa ma dareemaysid saasoo kale ma dareemaysaa dalaha focuskaagii diiradaadii wax ma ka sii noqdeen goalskaagii iyo yoolashii aad lahayd ee aad ka shaqaynaysay ma dareemaysaa inay wax kaa haystaan ama aanad sidaad u rabtay u rabin aad ogtayna waxaas dani kuugu jirto laakiin qalashadiisa iyo isku hawlkiisa aad moodo inaad ka sokayso marar badan maskaxdaadu ma kuu sheegtaa alla yaa meeshan kaa cararsiiya maybe intaad meeshanba ka cararto oo ka xubsiibato gurigan ka guurto alaabtan iska bedesho dharkan ka tagto magaalo kale iyo meel kale iyo dad kaloo cusub yaa ku geeya aad nolosha dib u bilowdid dareentaa inaad u baahan tahay inaad ka xubsiibato responsibilitieskaagii iyo xalaali wixii mas-uuliyaad ku saarnaa haddii in ka badan su'aalaha aan idi weydiiyey 5 ka badan haddaad yes ay tahay waxaa laga yaabaa in nervous systemkaagu uu ku cakiran yahay waxa la yidhaaho ama ku dhaceen waxa la yidhaaho shufbeel tamareed burnout maxaa xale waxaasoo dhan waan isku arkay anigaad iga sheekeynaysaa xalka waxa weeyaan
اللهم صل على سيدنا محمد شوبالka tamareed kuma dhaco hal maalin kuma dhaco kuma zuulmo inaad yar carabto diyaarad yar korto meel yar tagto 3-4 cisho soo joogto badda soo gasho cagaa soo noqoto halkii unbuu ka balaamaya kuma bao inaad carabtida tiraahdo waan soo cumraysanayaa ma xajkan tagaya halkaasaan bariya soo joogaya ruuxiyan qalbigaagii iimaaniyaadkaagii kor bay usoo kacayaan laakiin jirkaagii weli sidii unbuu u daalan yahay because systemkaagana u baahan inaad fahamtid allahuma salli calaa sayidina maxamed maalmo keliya maalin iyo 2 kuma samaysmin shufbeelkan tamareed thousands kumanaan kun oo stress moments laxadaad stress iyo cakirnaan oo iska daba tegay ayaa sameeyey thousands of moments kumanaan kun oo moment iyo daqiiqado iyo albiriqsiyo kale oo nafsadaada aad nasinaysid oo nafla hadal positive aad la timaadid oo naftaada iyo maskaxdaada aad u sheegtid we are safe yay ku bii karaan culimada psychology-gu waxay isticmaalaan wax la yidhaaho microcycle method cycle-kan iyo soo celcelintan aad soo celcelisay stresskan iyo naftu ay soo baqday activation-kan ay ku jirtay in leeg oo dib loo furfuro oo loo falkiyo oo loo fahmo oo loo sheego maanku inuu nabdoon yahay yay wax ku soo noqonayaan oo uu maskaxdaada iyo nervous systemkaagu ay kaga baxaysaa shufbeelkan tamareed ee ay gashay right arrinta koowaad waxa weeyaan breathe ilaa iyo maalintii aynu kabasho bilownay waxaynu ka soo hadalaynay muhiimadda ay leedahay neefsashadu muhiimadda ay leedahay neeftu waa waxa ugu muhiimsan kala wada systemkan jirka bani aadamka gudihiisa ku jira isku xidhnaashiya ruuxda iyo neefta iyo jirku waa neefta right allahumma salli ala sayyidina maxamed inaad neef xeel dheer aad qaadato oo sanka aad ka qaadato afka aad ka soo daysaay waxay kaa caawinaysaa xididadii jirkaaga heeganka ku jiray inay nastaan waxaa jira wax la yidhaahaa vagus nerve right kaasaa la stimulate garaynayaa oo laga kicinayaa fadhiga kaasina wuxuu ka shaqaynayaa wax la yidhaaho parasympathetic nervous system parasympathetic nervous system parasympathetic nervous system maanta waan yar carabeelay ayuu ka shaqaynayaa oo ah jirku marka uu ku jiro xaalad heegan ah oo khatari ay soo gashay oo aynu ka sheekaynay inuu wadnihii garaacmayo inay indhihii harag ka soo baxayaan oo waxa la yidhaaho attentionkaaga iyo dhani uu saarayo diiradda khatarta markaa ku haysata inay murqihii soo gejismayaan inuu wadnihii garaacmayo inaad heegan ku jirto meesha inaad ka carato ama inaad isdifaacdo markii xaaladaas khatartaahi suusho xidido kale iyo qaybo kaleo maskaxdaabaa la wareegaya waxa la yidhaaho shaqadii jirka waxaa ka mid a vagus nerveskaasi wuxuu qayb ka yahay systemka dejinta jirka ama natural calming system waxa la yidhaha right oo jirkii wuu nabdoon yahay hawlihii ka kala socday hadday deefshiid tahay iyo hadday safayn tahay iyo hadday macdantii iyo nuxurkii cuntadii aad cuntay laga reebayey ay tahay sidiisii ha u shaqeeyo oo ha deganaado oo ha neefsado oo xaalad kaamaha ku soo noqdo ayay xididadaasi ka shaqaynaya ama vagus nervekaas uu ka shaqaynaya ma doonayo inaan vagus nerveka iyo parasympathetic nervous systemkaas aan ku noqnoqdo ooma aan kala qaadqaado sidii dhakhtarkii oo kale laakiin waxaan rabaa inaan sawir guudinin sawiro now markaad neefsanaysid tusaale ahaan waxay yidhaahaan culimadu waa inaad neefsataa neeftaad qaadanayso aad 4 ku neefsata 4 ku neefsa maxaa laga wadaa neef baad qaadanaysaa waad haynaysaa 1 2 3 4 soo daa markaa intaad soo daynaysaa 6 ku soo daa bay ku odhanayaan soo daa maxay ka shaqaynayaan jirka waxaa loo signal garaynaya maskaxdaada qaybtii heeganka ku jirtay in khatartii ay dhamaatay ila markaad khatar ku jirto xaalad khatar aad ku jirto neefta waad isku haysaa waxaad arkaysaa adigoo neeftii isku haya oo
isgeliyey waxa la yiraahdo ilkihii isgeliyey oo indhahaagii soo jeesteen oo wajigaagii oo dhan adkaaday oo murqahaagii oo dhan heegin ku jiraan oo wadnihii ku garaacmayo oo dhididay oo meel kasta saaysu kaa gashay laakiin markaad jirkaagii dabciso ee intaad neef xeel dheer qaadato neef xeel dheer aad soo dayso signalkaasaa maskaxda u tagay it's safe khatartii way dhammaatay microcycle-ka tallaabadiisa labaad waxa weeyaan in aad naftaadii u sheegto inaad nabdoontay oo sidaa loogu sheegaya naftaada inaad nabdoontay nervous systemkaaga wuxuu u baahan yahay caddayn inaad nabdoontahay tusaale ahaan halka aad fadhido hareerahaagaad eegaysa si degan baad u eegaysa isku day inaad u fiirsato indhahaagu ay qabtaan kalarada kala duwan aad arkaysid kursi baad aragtaa miis baad aragtaa faraas baad aragtaa qalin baad aragtaa buug baad aragtaa diracaaga patternka ku yaala ama macawistaada patternka ku yaala midabadaad aragtaa sijaayad baa ku agtaala barkin baa kuu muuqata muraayad baa kuu muuqata caagad biyaad ku cabaysaa kuu muuqata waxaas oo dhan colors kala duwan bay leeyihiin u fiirso kaasi waa buluug kaasi waa casaan kaasi waa huruud kaasi waa bunni kani waa madow kani waa sidan ayankaan midabadaa u fiirso lightska u fiirso laydhar kala duwan baa laga yaabaa indhahaagu inay arkayaan laydhka caadiga ee daaqada kaaga soo geliyaad arkaysaa reflectionka iyo humaaga albaabka ee kusoo noqonaya muraayada hortaale ee dhexdeeda kaaga muuqanaya ayaad arkaysaa allahuma salli calaa sayidina maxamed hadduu faynis ku daaran faynuskaad arkaysaa hadduu laydh degan ku daaran yahay hadduu mid aad u ifweyni ku daaran yahay baad arkaysaa right haddii gaari aad la socoto amaad dhex fadhido waxaad arkaysaa intaasoo iftiinoo kala duwan right yaad arkaysaa lightska laftarkooda midabadooda kala duwan yihiin texture-ka haddii qalinkaagani aad saa u taabato furkiis waa caag haddaad buugaaga xaggiisa dambe taabato gariirad buu leeyahay laga yaabaa haddaad kursiga aad ku fadhido aad taabato wuxuu ka samaysay texture-kiisa ama samayskiisa dareemaysaa maradaada waad taabanaysaa hadday baati tahay kaarbadkaaga wax kaluu ka samaysan yahay kursigaaga wax kaluu ka samaysan yahay computerkaaga wax kaluu ka samaysan yahay galka telefonkaaga wax kaluu ka samaysan yahay sijaadadaadu intaasoo waxoo laysku talayo patterns loo sameeyey bay ka samaysan tahay ayankaan texture baa jira nuxurka dareenka uu shaygu leeyahay wuxuu ka samaysan yahay u fiirso codadka kala duwan u fiirso ribaa halka ka ciyaysaa ey baa ciyayaa gaari baa marayaa ilmo yar baa ooyayaa qof hurdaa khawrinaya record baa baxaya tv baa baxaya microwave baa daaranoo baxaysaa intaas oo sound oo kala duwan tani waxay caawinaysaa maskaxdii inay update garayso environmentkii markii hore xog kaliya hayse khatar bay ku jirtay waxyaabo badan oo kala dhacaya way ka soo foqaysaa meeshii ay ku deganayd environmentkii baad update garanaysaa war cusub baad u keentay environment cusub ayay register garanaysaa inay jiraan right dadku ma qofku marka uu burn out ka geliyo xaaladda burn out-ka ama ay iska warhayaan miisan iska warhaynin inta badan wuxuu yeeshaa hal il oo uu wax ku eego ishiisaasira khatartoo keliya ayay aragtaa uma fiirsadaan safety-ga iyo nabdoonaanta iyo kala deganaanshiyaha hareerahooda ka jira sisoo ayay u baahan tahay maskaxdii in dib loo soo celiyo oo la notice garaya ama ay aragto ama ay u fiirsato ama ay indho u lahaato nabdoonaanta hareeraheeda ka jirta arrinta saddexaad waxa weeyaan movement dhaqdhaqaaq in la sameeyo stressku wuxuu sameeyaa stagnant inuu meel wax ku dhajiyo maqihii oo dhan baa isku kaa xiran ilkihiibaa aad isku haysaa oo gebigoodba aad dheehii ka dishisada saa isugu xoqaysay wejigaagii oo dhan baa isku jira lafihii wejigaaga oo dhan baa iska shan biinkii timaha kugu xidhnaabaa kugu adkaysan masarkiibaa kugu adkaysan macawistiibaad dhexda saa iskaga xidhay maxaa la yidhaahaa allahuma salli calaa sayidina maxamed suunka aad xidhantahay halka u dambaysu ka xidhan yahay saacadda halka u dambaysay ka geejisan tahay shaarkaad xidhan tahay ilaa badhinka ugu sarreeyaa kuu xidhan 100 maro oo laga yaabo inaad u baahnayd oo qaboobo jirin baad ku tigtigan tahay sharabaadka doona ruuga dushiisa ku joogaa nigiska aad xidhan tahay waxaa laga yaabaa inaanu kuba leekaynba oo sidaa kugu geejisan yahay right now movement waa inaad samaysaa movement wuxuu samaynayaa dhaqdhaqaaqo dabacsanaan buu keenayaa iskala bixi jirkaa kala bixi stretch kala bixi garan kalaad xidhantay ma kuleegi surwaalku ma kuleegi macawista miyaad ku gejis diraca qoortiisu may kugu yar tahay biinka timaa kugu xidhan may kugu adkaysan yahay nigiskana dhexda ma ku leegyahay question su'aal isweydii right kala baxsanaan baa imanaysa inay kala baxaan ogaalkii wuxuu ku siinayaa inaad soo kala baxdid
wallahi garba way adkaysnaayeen waaniga qoorta soo gariyay dib baad u dejinaysaa ilkahana isku xoqaysid baad kala daynaysaa maxaa la yidhaahay gafuurkana sida u taagaysid baad dib u soo celinaysaa jirkaagii waxaad u sheegaysaa inuu heeganka ka baxo oon u baahnayn dagaal u gelaya inaanu jirin xaalad relaxation aad gelaysaa marya kulaaleeg baad xidhanaysaa kaba kulaaleeg baad xidhanaysaa sharabaadkan ruuga ka sarreeyaad soo dejinaysaa right relax soo deg xaalad soo degtaanaad gelaysaa iskala bixintanaad iskala bixinaysaa jirkii waxay u sheegaysaa marmihii waxay u sheegaysaa xididadii waxay u sheegaysaa seedihii waxay u sheegaysaa lafihii waxay u sheegaysaa waynu nabdoonahay aan iskala furfurno arrinta afraad waxa weeyaan attention recovery wax la yidhaah attention recovery soo jeedkaagii inaad dib ula soo noqoto daqiiqad kastoo saacad kasta ku jirta bal intaad dib yar fadhiisato waxaad isweydiisaa attentionku ama soo jeedku ama diiraddu waa biological resource waa il biologicaloo jirkaaga uu u baahan yahay oo wax kastood qabanaysa haddaad seexanaysa haddaad soo jeediyay dad gaadhwadiyo haddaad ilmo yar naas siinaysa iyo haddaad ayankan waxaad doonaad qabanaysa attention buu u baahan yahay attentionkaagii hadduu meel kale ku maqan yahay ishaadii tamareed meel kale ku baxaysaa bay ka dhigan tahay now sidaad ula soo noqonaysaa attentionkaaga waxaad ula soo noqonaysaa in aad isweydiiso dhowrkii saacadoodba mar maxaa imika diiradaydii fuuqsanaya xaggay ku jeedaa xaggay ku dhammaatay now jawaabaad helaysaa telefoonka ma hawlo kalaa ma cid kale oo aanad u baahnayn la hadalkooda ma telefoonka hadduu yahay waad iska yar xidhaysa halkaasaad iska dhigaysaa 5 minute 10 minute 20 minute 25 minute hadba hadhu tore naftaada saad ku tababartay gaadhisa right ku fooganaanta waxaan aan dantaada ahayn dhagaysiga iyo quudashada 100 wax negative oo shaqo iyo shuqulkoona kugu jirin waxana aanad ka qaban karin waad ka kaadsanaysaa ka fekerka wax aanad waxba ka qaban karayn oo dhammaaday 10 sano ka hor ta fekerka wax soo socda oon cidiba ku weydiin ilaahay cibaadada berri kuma weydiin bal ka waran why ba wax aan shaqadaadii shuqulkaaga ahayn aad ugu laalan tahay ama aad ugu baahsan tahay baad isweydiinaysa marka waa inaad gashaa 3 daqiiqo markay ugu yar tahay oo mental silence ood ka soo xubsiibanayso bal wax kasta oo tamartaada fuuqsanaya ama diiradaada fuuqsanaya waad soo noqotay marka arrinta shanaad waxa weeyaan human connection xiriirka bani aadamka aad la leedahay bani aadamka iyo basharku waa noola bulshaawiya haddaad qol yar isku soo xidho jiingad yar isku soo xidho dadna uma baahni cidnayna la hadla ma rabo dadka waan ka maarmay waxa aad iskugu sheekayso dadka in xulabaa jirta sharaf labaa jirta aqoon iyo iimaan iyo cilmi iyo faham iyo garasho iyo la joogooda uu dawe yahay dadkaa doon oo kalinimada iska ilaali social connection inaad lahaataa nervous systemkaaga wax badan buu ka taraya wada hadalku dhoola cadayntu hagta kugu leh ehelkaaga iyo waxa weeyaan maxaarimtaada aad hag siisaahi interactionska iyo la falgalka dadka ee macnaha lihi wax badan buu ka tariyaa badqabka caafimaadkaaga maskaxeed right arrinta lixaad waxa weeyaan spiritual regulation qalbigaaga intaad gacantaada sidaa u saarto waxaad isweydiisaa waa maxay waxaan xambaarsanahay een ku cufanahay een isku culaysiiyey ee aanu ilaahay bay odhan xambaar isku soo celceli markaa jawaabaad helaysaa waxaad ku bedelataa xasbuna allaahu wanicma alwakiil wax walba ilaahay baa kaaga filan ilaahay baa wax walba kaaga filan culays walba kaa qaadi kara waxaad tabanaysa isagaa ku siin kara waxaa kaa bi'ila ee ku daba jiitamaya isagunbaa kaa bi'in karaya xasbuna allaahu wanicma alwakiil ilaahay baa igu filan arrimahaygo dhan isagan la wakiishay mid tegayo mid soo socda labadaba burnoutku iyo shubbeelka tamareed inta badan wuxuu imaadaa markaynu u dhaqanno ka'annamaa innaga inay wax waliba inagu tiirsan yihiin oo aynu u baahannahay adduunyadoo dhan inaynu kala hayno which is neeftaada neeftan ku xigtaanad ogeynba meela ka imanayso waxaad tarayso aad adduunka og tahay oo aad maamuli karayso oo gacantaadiiyo maamulkaaga ku jira ayaanba jirinba comeback adoonnimadii kusoo noqo howlaha ilaahay iyo maamulkiisa iyo tasarrufkiisa faraha kala bax ha u dhaqmin kaanama inaad erya dhulka la hayso ilaahay baa erkay dhulka kala haya adigu waxba ma kala haysa relax right
اللهم صل على سيدنا محمد. 6 tallaabo waxaan isleeyahay wax badan bay ka tari karayaan inay shufbeelka tamareed ay bogsiyaan. Dikriga, sujuuda, isdhiibitaanka ilaahay isu dhiibayso, soo noqoshada, weysada, joogitaanka, connectionka ilaahay la leedahay, dadka wanaagsan aad la leedahay, nasashada, raxmadda, naftaada iyo dadka iyo deegaanka iyo mayadaanka iyo xayawaanka aad u naxariisanayso wax badan bay ka tarayaan caafimaadka jirkaaga. Ilaahay wuxuu inoogu talagalay inaan u noolaano si quman. Haddii aynu qumanaanta qalalaasa gelinana waxa inagu dhacaya waxyaabo fara badan oo shufbeel tamareedkaasi uu kow ka yahay. dadaal baad samaynaysaa, waad nasanaysaa, waad cibaadaysanaysaa, waad shaqaynaysaa, ficil baad la imanaysaa, waad negaanaysaa. Cycles, right? Haddii ka hor intaadan dhegeysan xilqadan aad soo haysatay inaad leysi tahay ama qof daciifa tahay ama aad jilicsan tahay ama aanay waxba kuu hagaagaynin, kasoo foq ereyada iscanaanashada in naftaada aad canaananaysid. Isku day inaad gudahaaga fahamto iyo waxa ka dhacaya. Jooji iscanaanashada aad iscanaananaysid. Waxaa laga yaabaa nervous systemkaagu inuu soo siday culaysyo sanawaad fara badana oo keliya uu ka fikrayay inuu ku badbaadiyo. U sheeg naftaada iyo ruuxdaada iyo gudahaaga inaad nabdoon tahay. In ilaahay arrimahaaga kuwii tagay iyo kuwa soo socda isaguu gacanta ku hayo. Aad u baahan tahay inaad neefsato, u baahan tahay inaad culayska iska qaato, aad u baahan tahay inaad joogto oonad kala filaqsanaan, oonad kala baahsanaanin. U ogolow naftaadu inay nasato, u ogolow jirkaagu inuu nasto, u ogolow ruuxdaadu inay nasato, u ogolow culayskanaad sido inuu ilaahay qaado subxaanahu wa tacaala. Salaam.